بسم الله والد متقانا ilmuhu inta aan 5 sano gaadhin waxa ay u baahan yihiin ee sababi kara horumarkooda adduunka inay kuwa la eg dhaafaan inay nolosha meel fiican ka gaaraan inay badbaadaan inta badan waxa naloo sheegaa ilmaha oo yaraanta lagu baro A B C ama iyago 4 sano jira la bara 1 2 3 ama 1 2 3 numberka inay tirin karaan xisaabta basic inay garanayaan ABCD da in la baro qoraalka in la baro markayna 5 sano gaarin arintaasi waxay keentaa inay horumaraan aragtida saa oranaysa waa khalad aragtida saxda waalid ma taqaan inoo sheegaysa dadka ku takhasusa barashada dhaqamada iyo dabeecadaha caruurta sida Dr. Arnold Zimmer ninka lira neurologist iyo ay kamidina ay noo sheegayaan waxa weeyaan ilmaha 5 sano intaani gaarin shayga ay u baahan yihiin inay horumaraan oo markay koraan dhabar adayg resilience ay yeeshaan oo xiriirka ay la leeyihiin bulshada wanaagsanaado oo xitaa haddii hawl ay ku guul daraystaan markiiba ay kici karaan waxa la yiraahdaa emotional safety emotional connection with their parents in ilmahaasi dareen wadaag ay waalidka la leeyihiin inay amni iyo badbaado ku dareemayaan waalidkood inay ogaadaan ilmahaas inuu og yahay waalid jecel inuu dhalay waalid soo jeeda inuu dhalay waalid u danqanaya inuu dhalay waalid habsiinaya inuu dhalay inay ku lamaanaadaan waalidkood oo marxaladda ay ku jiraan 5 sano aanay gaarin ay la yeeshaan connection iyo lamaano inay ku noqdaan oy kulli faaqmaan waalidka oy og yihiin waalidkan inay u soo noqon karaan oy la jaan qaadaan waalidka oo waalidku uu garan karo ilmahan waxa dhibaya ilmuhuna uu garan karo waalidku inuu og yahay waxa iyaga dhibaya inuu dhibayo inay sidaas kula jaan qaadaan ba waxa la yiraahdaa emotional connection waxa la yiraahdaa emotional safety midda iyada ah in ilmuhu ay helaan 5 sano intaani gaarin ka hor ayaa ka muhiimsan in ilmuhu aan kula degdegno ABCD inaan barno inaga oo connection isku xidhnaansho aan nala lahayn inaan ilmaha kula degdegno akhriska inaan barno iyadoo ilmahaas waalidkii uusan la yeelan ku xidhnaan attachment waxa la yiraahdo inay kulli faaqnaan oo ku sidkanaadaan oo lamaano ku noqdaan qoraalka la barayo xilliga wax ma soo kordhiyo waxaan maanta rabaa marka waalid inaan iraahdo ilmaha toddlerka ku jooga 5 sano intuunan gaarin isku day ilmaha inaad isku xidhmi kartaan in indhaha markuu ka eego ay qosli karaan in markaad hab siiso ay hab ku siin karaan in haddii khatar arkaan ay kugu soo kori karaan ay kugu soo carari karaan in haddii gaajoodaan adiga ay kugu iman karaan inay og yihiin inaad la qosli karto waxa la yiraahdaa waxaan sheegayno emotional connection ilmaha safety ku dareema midaas waxay keentaa markay koraan in xiriirka bulshada ay la leeyihiin oo adkaado haddii hawl ku guul daraystaan markiiba ay ka soo noqon karaan they come back in waxbarashada ay ku fiicnaadaan maskaxdooda the physical wiring maskaxdu qaabka ay xarkaheedu isugu xirxiran yihiin in ay awood yeeshaan midaas weeye midda aan baranayno sidaa darteed marka laga hadlayo tadawurka caruurtu ay maraan koriinkooda waxa la yiraahdaa Western Child Developmental Psychology khubarada ugu horeysa Dr. Arnold Zimmer ay kamid yihiin dhammaantood aragtidan waxay cadeeyeen 20 sano ka hor adduunkuna maanta waa ku baraarugay waxaan rabaa inaan iraahdo quraankeena markaan eegno Yusuf alayhi wa ala nabiyina sallallahu alayhi wasallam nabi Yusuf iyo aabihi nabi Yaqub in yar bay wada joogeen quraanka saan ka garanayna waayo isagoo yar ay walaalihii ka haysteen oo yiraahdeen parkigu nagula soo ciyaaraya oo ceel ay ku rideen Yusuf waxa soo maray oo dhan trauma leh ceelka ilmaha yar lagu riday child trafficking in suuqa lagu kala iibsaday meeshii la oran lahaa ilmahan yar reerkii ka soo lumay aan la raadino in lacag yar lagu kala iibsado aabihi laga fogeeyo waa trauma waa waxa suuqa lagu kala iibsado caruurta waa waxa maanta caruurta burburiya child trafficking la yiraahdo UNT haydul bay ka digayso xabsi inuu aado waxa soo dhan haweeney inuu ku been abuurato sexual harassment waxa la yiraahdo waxa soo dhan wuxuu kaga badbaaday marxaladii uu ku jiray age-ka aabihi buu ku xidhnaa
isagoo riyada u keeni jiray, isagoo oran jiray aabe xalay waxaasan ku riyooday, cid kale uma tegi jirin. Connectionka wuxuu keenay self esteemkiisu kor inuu u kaco, in uu iskala weynaado waxyaabaha dembiyada ama dadka hoos u rida. waa ka oranaya ilaahayo xabsigaa iiga fiican, iiga khayr badan waxaanay iigu yeedhayaan. waa ka xabsiga markuu joogay dadku ay ku dhaheen dadkii la xidhnaa innaa naraaka min almuxsiniin, shakhsiyadiisa iyo wanaagiisa ay ka marakaceen. waxaan arkaynaa oo kaleeto in ilmaha shakhsiyadoodoo la dhiso rabbigood ay ku xidhmaan. waxyaabaha dadejiya waxaa ka mid a marka hore waalidkood inay ku xidhmaan. waa waxa la yidhahdo connection before direction. connection before direction. connection waa ilmuhu inuu adiga kugu xidhmo, ku yaqaan, emotional safety kula dareemi karo intaadan rabbigood ugu yeedhin. qur-aanka waxaan ka baranaynaa marka yaa bunaya ayaa ka horeysa laa tushrik billah. yaa bunaya ilmahaygii aan jeclaa, waa ilma aad jecesha ood isku tallaalanteen, waa arrintaan hadda ka hadlayno, ayaa ka horeysa directionka aad siinaysa oo ah laa tushrik billah. yaa bunaya ka horeysa aqimi salaa. yaa bunaya ka horeysa wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkar. u fiirso, yaa bunaya ka horeysa irkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin. aabe ilmahayga aan jeclaayo, waa connectionkaan ka hadlayno, isku xidhanka aan ka hadlayno ayaa ka horeysa amarka aad siinayso ood rabbigood ugu yeedhayso. ilmaha markay yaryihiin marka haddaanay waalidkood ku tallaalmin, oonay jacayl iyo kalsooni iyo wadahadal aanay ka helin, waalidka waxaa ku adkaata direction inuu sii amar siiyo, uu rabbigood ku jiheeyo, uu salaada baro. waayo adigii mas-uulka lagaaga dhigay ee kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi la yidhi, mas-uuliyaddaadii kamaada soo bixin. kelmaddan waxaan ula dan lahayn ilmaha marxaladda markay ku jiraan a b c d in la baro ma xuma, laakiin maxaa ka muhiimsan waalidka inay bartaan, inay ku xirmaan, inay connection la yeeshaan. qur-aanku waa ka markhaati kacaya, sunnaduna waa ka markhaati kacaysaa, khuburada jirana maanta waa ka markhaati kacayaan. waalid walbo kelmaddan dhegaysanaya, waalid lagasi wuxuu idugu baaqayaa ilmuhu 5 intaanay gaarin lamaane noqda, isku sawirma, safety ha kugu ag dareemaan, in la jecelya ha ogaadaan, in markii ooyaan loo istaagaya ha ogaadaan. taas ma aha entitlementygaan ka hadlaynin, laakiin marxaladda waa inuu adiga kugu tallaalmo. waxaad u diyaarinaysaa inaad direction siiso ood rabbigood ugu yeedho. waalid lagasi wuxuu idaga codsanayaa fadlan muuqaaladan sheer gareeya, subscribe dhaas aad u heshaan walaalaha muslimiintaana la sheer gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.